السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaad daawadayaal waa mar kale iyo walaalkiin Maxamed Cabdiraxmaan. qisada aynu maanta soo qaadan doono waa qiso aad iyo aad u cajaa'ib badan, wax badanna aad ka faa'iidi doonto. fadlan daawade muuqaalka wada dhammayso si aad u ogaato qisadan la yaabka badan. haddii aad ka heshay fiidiyowga, fadlan like saar, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. asxaabtaadana u sheer gareey. taasi waxay inoo tahay dhiirigelin aad nagu dhiirigelinayso in aynu sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. waxaa jiri jiray hadda ka hor nin uu Ilaahay siiyey maal iyo xoolo aad u badan, wuxuuna ninkaasi ka mid ahaa reer bani Israa'iil. ninkaasi nicmada Ilaahay muusan ku shukrin oo wuxuu ka qaaday kibir iyo isla weyni. wuxuu noloshiisa oo dhan ku dhammaystay xumaan iyo dembiyo aad iyo aad u badan, weligiina ma samaynin wax khayr ah. ninkii markuu gaaray wuxuu ka baqay inuu Ilaahay hortiisa waxaas oo dembiya la hortago. aad iyo aad buuna ugu walwalay waxa ku dhici doona markuu dhinto. wuxuu is yidhi waxaad samaysaa xeelad aad ugu badbaadayso cadaabka Ilaahay. wuxuu u yeeray dhammaan wiilashiisii oo dhan, wuxuuna ku yidhi, aabba wanaagsan miyaan ahaa mise aabba xun? waxay yidhaahdeen wiilashii, waxaad ahayd aabba fiican oo wanaagsan. wuxuu yidhi, weligii ma samaynin wax khayr ah. haddii aan Ilaahay la kulmo wuu i cadaabi doonaa si uusan u cadaabin qof kale. waxaad samaysaan markaad dhinto jirkayga guba, kadibna jarjara, kadibna qayb waxaad raacisaan dabaysha, qaybna waxaad ku tuurtaan saxaraha, qaybna badda raaciya, si aan ugu badbaado la kulanka Ilaahay. markuu dhintay sidii ayay sameeyeen wiilashii, oo way gubeen. qaybna dabaysha ayay raaciyeen, qaybna saxaraha ayay ku tuureen, qaybna badda ayay raaciyeen. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba ma cajsigeliyaan, oo wax kasta wuu awoodaa. baddii waxaa la amray intii lagu tuuray inay keento, sidoo kale dabayshii iyo saxarihiina waxaa la amray inay keenaan intii ay hayeen. hal meel ayaa jirkiisii la iskugu keenay, kadibna Ilaahay subxaanahu wa tacaala naf ayuu geliyey. waxaa lagu yidhi ninkii, maxaa kuu kallifay sidaa inaad samayso? wuxuu yidhi ninkii, waxaa igu kallifay sidaa inaan sameeyo cabsidaada Rabbiyow. sidaa markuu yidhi ninkii, Ilaahay wuu u dembi dhaafay, oo Ilaahay wuxuu geliyey janno. halkaasina waxaa ku dhammaatay qisadeenna maanta. fadlan walaal, waxaynu kaa codsanaynaa inaad janalkeena ku soo biirto si aad ugu faa'iido aqoon iyo xogo kala duwan. الله أعلم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.